Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa idin salaami dhamaan walaalahay meel kasoo joogtaan. Waa hooyada maanta. Maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago maxaa la dhahaye dhibaato oo hooyooyinka inta badan haysato oo ah xagga cunada ciyaalka cuna siinta. Waxaa jiro hooyooyin badan oo aan arkay oo ka cabanayo cunuga ilmaha cuntada inay ku xuntahay oo cunto fiican aysan qaadanaynin. Marka waxaa jira qaladaad oo waalidka anaga ahaan aan sameyno oo sababi karo cunugaas inuu hadhow noqdo cunug aan wax cuneynin. Marka 10 qodob ayaa idin hayaa oo sababi karo cunto xumada ilmaha. Marka waxaan rajeynayaa inaad la dhameysan doontiin oo dhageysan doontiin oo wixii idinka anfacana aad ka qaadatiin oo cashar ay idin noqoto insha Allah. Aniga iyo dhamaan hooyooyinka dhibaatadaas ku qabo ani alxamdulillah hadda waa ka gudbay wax waan soo maray laakiin hadda casharo badan ayaan ka bartay. Marka adinkana waxaan rajeynayaa inaad cashar ka baran doontiin qodobadan soo socdo. Midka koowaad waxaa waaye hooyada horta waa qofka ugu horeeyo oo tusaalaha u ah ilmaha. Ayada hadday wax fiican cuni weyso cunuga asagana ayadu ku dayanaya. Haddii aad wax fiican aad cuntid cunto nafaqo leh aad cuntid oo ilmihii aad cuntada isla wada cuntaan way kula cunayaan ciyaalka. Markay yar yihiin inaad cunto fiican oo maxaa la isku dheelitiran aad bartid oo bilowga u bilowdid wax fiican waaye. Hooyada marka ayada hadday wax fiican ilmaha hortooda ku cuni weyso ee dhahdo cunto hebel aniga ma jecli cuntadaas saas waaye ama cuntada ay wax ka sheegto cunuga waxaa ku dhacaya niyad jab asigana wuxuu ka qaadayaa inuusan cuntadii cunin. Qodobka labaad waxaa waaye inaad cunuga xoog u isticmaashid ama qasab aad tiraahdid cunugan waa qasab cuntada inuu cuno waryaa cuntada ma cuntid maxaa ka khaldan adiga faca saas waaye ama ilmaha kale waxaas way cunaan adi maxaa ka khaldan waxaas camal ma fiicno pressure-ka too much marka qaar waalidka ilaa heer waxay gaaraan xataa cunuga cuntada ay ku garaacaan oo labadii mar oo gashto xataa oo cunuga qasab ku noqoto uu ma tago xataa cunuga duu laba mar ku gashto xataa way kugu filan tahay hadda aragto cunuga inuu wax saas qaadanaynin tartiib xataa loogu celceliyaa inaa cuntada wax yar aad siisid hadhow haddana cabaar markuu soo wareego wax yar kale aad siisatid laakiin qasabka ha laga daayo ilmaha. Qodobka saddexaad waxaa waaye inaad dhahdid hooyo cunugan haddaa ku dhahdo hooyo cuntadan haddaa cuntid waxaasaa ku siinayaa aa u isticmaashid laaluush camal markin oo aad dhahdid ninaca ku siinaa ama shukulaato ku siinaa ama banaanka ku geenayaa wax fiican maahan waxay qasbaysaa cunuga mar walba hadhow inuu kaa rajeeyo inaad wax un siisid markaa cuntada siinaysid noqoto shaqo joogto ah. Marka wax fiican maaha cunuga cuntada waqti loogu talagalay haddaa u diyaarisid waa inuu at least wax un ka qaadan karaa oo aadan dhihin waxaasaa ku siinaa ilaa aa cunto. Qodobka afraad waxa waaye cuntada inaad dhaqso aad ka bedeshid cunuga dhaqso cunuga asoo cuntadii la qabsanin inaa haddana mid kale keentid aad tiraahdo kana cun oo kii hore asoo eelba ku dhibanaay marka cuntada bedelka badan ma fiicno hal cunto waqti sii cunuga markuu barto oo tartiib oo la qabsado mar walba qofka waxa ku cusub oo foreign ku uu ka cararaa Soomahan adiga weynba wax cusub inaad baroweyso kugu adag tahay laakiin tartiib aad ku baranaysaa haddaa maanta baratid waxa laga yaabaa beri maasha Allah waxaas way fiicnaayeen inaad dhahdid. Marka ilmahana saas waaye ayagana in waqti la siiyo loo dul qaato hal cunto markuu si fiican ula qabsado at least mid kale aad bartid. Qodobka shanaad waxaa waaye inaad u karisid cunug walba cunto gooni ah aad dhahdid cunugan wax ma cuno marka cunto gooni ah u karinayaa xataa waxay ku abuureysaa ilmaha niyad jab ku abuureysaa cunug kale inuu isdhaho walaalka waxaa loo karinayaa wax fiican marka inuu ilmaha oo hal cunto loo wada kariyo oo nafaqo leh oo isku dheelitiran oo kuligood ay wada cuni karaan marka in laga ilaaliyo ilmaha in cunto adigana waqtiga ka qaadanee daal iyo rafaad ka mareysaa inaa maanta dhan weelal kala duwan aad wadid hal cunto oo qof walba anfacaysa inaad sameyn kartid fiican. Qodobka lixaad waxaa waaye inaad cunto badan aad u gurtid ilmaha aad dhahdid hadda dhameeya cuntada markay tirada ka badato niyadda lagana maahan oo cuntada inay yar tahay ay ku qurux badan tahay wax yar aad u soo gureysaa oo qiyaasi aad isleedahay way dhameyn karaan cuntada markaa u soo gurtid tartiibkooda u cunaan xataa hadday ku yaraato markin oo igu soo daray ku dhahay laakiin markaa saxanka aad u badiso waa la walaaqaa waa laga tagayaa wax fiicanna maahan marka cuntada zaaid yaa looga badinin ilmaha tankooda wuu yar yahay dadka waaweyn iyo ilmahana isku mid maaha isku qaadna maahan asaga 5 mar aad u qaato aa ku filan
marka maxaa la dhahaye dheefshiidkoodana uma fiicno inuu cuntada ay ka badato wax walba xad ay leeyihiin cuntada xoogaa inuu cuno cabitaan oo qaato meel oo ka neefsadana oo helo nabiga sallallahu alayhi wasallam yacni sunnadiisa ayaan saas ahayd in oo cuntada la iska badin ilaa aa ka gaartid heer aa kama tagi rabtid ma fiicno cunug ilaa heer oo kama tagin cuntada lagu daldalana wax fiican ma ahan marka qodobka toddobaad waxaa waaye oo khaladka oo la sameeyo cabitaanka inaa ilmaha ka badisto cabitaan zaa'id ee markii la siiyo ilmihii waxay ka hor istaagaysaa cuntada ay ka hor istaagaysaa wax ma cuni karaayo ama snackska xataa haddii la siiyo buskud iyo qashinkaas iyo haddaa ilmaha aa siisid waxay ka hor istaagaysaa cuntadii oo fiicneed oo nafaqada laheed oo isku dheelitirneed inuu cuno hadhowna uu dhaho ani waxaasaa snackskaasaa rabaa ama cabitaan hala siiyo kooga horaato marka dabeecadaas in laga jaro qodobka 8aad waxaa waaye inaad dhahdid yacni ilmaha markaa cunto usoo dhigto waryaha daadinina nadiifiya kan weelka saan yeela yacni inaan maanta dhan nadaafad iyo wax aad ka fikirtid cunug markuu cunaayo meel nadiif u fidi cuntada ha cuno maxaa la dhahayay hadhow waa iska nadiifina cunugaa wax daadino cunto oo ku ciyaarin hadhow cunto macaankeeda maba dareemin maahano marka qodobka 9aad waxaa waaye inaa inkirtid yacni dabeecadda cunugan oo ilaahay u dhaliyay ilmo waxaa jiro maxaa la dhahayay yacni ilmaha inta badan wayba kala dabeecad duwan yihiin cunugan cuntadan si natural oo iskaga necab yahabo uusan qaadan karin marka ha inkirin yacni dabeecadaas adiga weyna waxaa jira xataa cunto aad necabtaa weligaa aad cunin ilaa aa yareed aa iska nacday oo maxaa la dhahaye haddii lagu keeno aad dhibsanaysid maxaa la dhahaye aad jeclaan lahayd in wax kale lagu siiyo marka cunuga dabeecadiisana in la inkiro ma fiicno maxaa la dhahayay waxaa kaloo jiro inaa qodobka 10aad waxaa waaye hooyada inay ka walwasho cuntada inay maanta dhan cunto xumada cunuga maanta dhan cunto ma cunaayo cunugan wuu i dhibaya alla cunto ma cunaayo maanta dhan cunto ma cunaayo haddii lagu celiyo asaga hortiisa lagu sheego maxaa la dhahaye cunugii naturally wuxuu noqonayaa cunug aan wax cunin maxaa la dhahayay because niyadiyaaba ee ka gashaba inuu wax cuni karin maahano marka inaan la dhihin wax ma cunaayo in la dhihin oo wax loo keeno cun waa cuni kartaa yacni oo la dhiirigeliyo walwalka tirada badan waa la iska dhaafaa cunug wax yar haddoo cuno xataa way ku filan tahay haddii oo hadda wax kaa qaada waa xataa inaa iska dhaaftid saacad kadib oo maxaa la dhahaye ku daydid at least cunuga cuntada maanta waqtigeeda yacni qada camal aa la joogaa qadadii oo kaa diiday ilaa cashada inta laga gaarayo gaajo ma u dhimanayo ma hal saac ama 2 saac ama 3 saac gudaheed baahi looma dhinto marka si maxaa la walwalka tirada badan ilmaha laga yareeyo insha Allah ilaaha noo fududeeyo ma fududo ilmo koris iyo cunto siintooda iyo waxooda dhan ma fududo hooyooyinka shaqo badan oo adag ay hayaan ilaahay inoo wada fududeeyo waxaan rajeynayaa inaad qodobadan wax badan ka faa'iidi doontaan ila wadaaga wixii idinka oo idin soo maray ama aragteen ama qaladyaashan aan sheegay mid kamid ah haddii ku dhacdeen maxaa la dhahaye waxaan rajeynayaa insha Allah inaad bedeli doontiin haddii lacala qaladaadka mid kamid ah aad samayn jirtay waa mahadsantihiin maxaa la dhahayay waxaan rajeynayaa insha Allah waxyaabo badan oo hooyooyinka anfaco inaan soo gelin doono channelka ku xirnaada gambaleelka furta subscribe-ka hala saaro qofkii aan hore u saarin qofkii saaran aad ayuu u mahadsan yahay maxaa la dhahaye like hala saaro hooyooyin badan halala sii wadaago si maxaa la dhahaye muuqaalkan uga faa'iidaan waa mahadsantihiin jazaakumullahu khayr asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh